على مر التاريخ، فلم تنفعهم كواحدة من أعتى بلاد أوروبا. halkani waa Liibiya, dhul ay camirayso qorraxda saxaraha, xeebaha quruxda badan ee badda Mediterranean-ka, iyo buuraha ay taariikhdu ku xardhan tahay. Waa dhul hodan ah, balse dhaawac weyn ka qaaday gacmo qalaad. Markii qarnigii 20aad uu bilaabmay, Liibiya waxay wajahday mid ka mid ah xilliyadeedii ugu mugdiga badnaa. Guumaystii Talyaaniga ayaa halkan duulaan ku soo qaaday. Ciidamo shisheeye ayaa ku soo duulay, waxayna halkii ay barwaaqo ka dhigi lahaayeen bilaabeen inay gubaan tuulooyin, xiraan suuqyo, caburiyaan dad, dilaan culimadii, duugaan dhaqankii suubanaa. Duulaankii Talyaanigu ku soo qaaday Liibiya waxa uu hurdada ka kiciyey nin oday ah, balse qalbi dhalinyaranimo leh, عمر المختار. فكيف استطاع عمر المختار بمئات المجاهدين وكيف استطاع إبادة الإيطاليين في معركة ضخمة؟ عمر المختار waxa uu ahaa nin aan ku hubaysnayn wax ka badan kitaabka Quraanka, xariga faraskiisa iyo karaamadiisa. Waxa uu la dagaalamay quwaddii ugu weyneed Yurub, isagoo aan haysan dawlad, diyaarado iyo dawlado kale oo saabinaya. Wuxuu noqday rajo u dhalatay dadkiisa, xabsi gelisay cadowgiisa, xasuusna ka tegay qarniyo dhan. Dokumentarigeena waxa uu ku saabsan yahay nolosha, halganka iyo geerida mid ka mid ah halyeeyada ugu cajiibsan ee ka soo dhex baxay gumaystiga Afrika, Sheekh Omar al-Mukhtar. 20 sano ayuu ka hortegayay ciidamada Talyaaniga ee doonayay inay gumaystaan dalka Liibiya. Intaan ku guda jirno safarkeenan taariikheed, waxaan soo qaadan doonaa sheekooyin aan buugaagta laga helin, jaraa'idda aan lagu daabicin, iyo xigashooyin si qoto dheer u faaqidaya halganka Omar al-Mukhtar, libaaxii saxaraha. ku soo dhawaada saaxiibayaal xalqadeena. حركت جيوشها تجاه ليبيا، تلك الدولة التي غزاها سلاطين الدولة العثمانية مرتين، مرة في عهد الفاتح ومرة في عهد سليمان القانوني، ورغم ذلك لم تقم سوى بتقديم فروض الولاء والطاعة لدولة الإسلام. magaciisu waa Omar al-Mukhtar Maxamed Farxaan. wuxuu ku dhashay magaalo xeebeedka Zawiyaad ee ku taala bariga Liibiya sanadkii 20 Agoosto 1862. waxaa kaloo la sheegaa inuu dhashay 1858. waxa uu ka dhashay qabiil loo yaqaan al-Manfa oo ka mid ah qabaa'ilada dega dalka Liibiya, qabiil caan ku ahaa diinta, sharafka iyo geesinimada. isagoo aad u yar ayuu waayay aabihiis, waxaana koriyay culimada ka tirsan ururka Sanusiya. waxaa lagu barbaariyay Qur'aanka Kariimka, cilmiga shareecada iyo anshaxa Islaamka, laakiin waxaa sidoo kale loo tababaray inuu u istaago xaqa, cadaaladda iyo inuu ka hor yimaado cadow kasta oo dulmi wata. wuxuu noqday wadaad, macallim iyo qof lagu kalsoon yahay, laakiin wuxuu isu bedelay wax ka weyn taasoo ah hadii qaran. French forces. This would prove critical for the Libyan teacher in the future. Muhammad al-Mahdi al-Sanusi. Omar al-Mukhtar waalidkii ayaa kula dardaarmay culimada inay barbaariyaan. waxay geeyeen dugsi Qur'aan. kadib Omar al-Mukhtar wuxuu ku biiray mahad ku yaalay waaxda Jaqbuub oo markaa ahayd caasimada dacwada kooxda Sanusiyada bariga Liibiya. wuxuu wax ka baranayay muddo 8 sano ah, wuxuuna bartay culuumta sharciga sida fiqiga, axaadiista rasuulka sallallahu alayhi wasallam iyo tafsiirka Qur'aanka Kariimka. Sheekh Omar al-Mukhtar
wuxuu ku soo barbaaray mabaadi'da iyo fikradaha kooxda sanusiya oo ku salaysnayd barashada jihaadka iyo la dagaalanka gumaystaha. Sheekh Mahdi as-Sanusi 1897 wuxuu Sheekh Cumar al-Mukhtaar u xil saaray magaalo la yiraahdo Zawiyaad al-Qusuur oo ka tirsan gobolka Jabalul Aqdar, isagoo helay jagada ah Sayyidi oo loogu yeeri jiray odayaasha iyo culummada ugu dhaqdhaqaaqa ururka Sanusiyada oo keliya. Sheekh Cumar al-Mukhtaar wuxuu noqday macallim dadka bara diinta Islaamka, waxa uuna safar dacwo iyo waxbarid u aadi jiray dhulalka Suudaan iyo Jaad oo markaas ay haysteen gumaystayaashii Ingiriiska iyo Faransiiska. Cumar al-Mukhtaar wuxuu ka qayb qaatay dagaalo badan ka hor inta uusan Talyaanigu qabsan dalka Liibiya. Dagaaladaas waxaa ka mid ah dagaaladii ka dhex qarxay Sanusiyiinta iyo Faransiiska ee gobolka Koonfurta Suudaan. Waxaana intaa u dheer oo uu Cumar al-Mukhtaar ka qayb galay dagaalkii gumaystaha Faransiisku uu ku qabsanayay dalka Jaad ee dhacay 1900. Sanadkii 1908 wuxuu qayb ka ahaa dagaal ka dhacay xuduudda Masar iyo Liibiya oo u dhexeeyay kooxdii Cumar al-Mukhtaar iyo gumaystihii Ingiriiska oo Masar joogay waqtigaas. 29 Sebteembar 1911 Talyaaniga ayaa ku dhawaaqay dagaal ka dhan ah dowladdii Cusmaaniyiinta oo Liibiya ka talinaysay. Doomihii Talyaaniga ayaana bilaabay inay duqeeyaan magaalooyinka xeebaha dhaca, wuxuuna shaaciyay in Liibiya ay ka mid tahay dhulka Talyaanigu uu gumaysto. Cumar al-Mukhtaar ayaa bilaabay inuu abaabulo jihaad ka dhan ah gumaystihii ku soo duulay dalkiisa. Dagaaladii ugu horreeyay ee uu Talyaaniga la galo waxaa ka mid ahaa dagaalkii loo yaqaanay Salaawi oo dhacay dhammaadkii 1911. Cumar al-Mukhtaar wuxuu hogaamiye u noqday kooxdii ugu weynay taariikhda Liibiya, taas oo dagaal la gashay gumaystihii Talyaaniga, gaar ahaan markii ay dowladda Turkiga ka baxday dhulka Liibiya sababo la xiriira heshiiskii Lawzaan sanadkii 1912. Heshiiskaas oo Cusmaaniyiinta ku qasbay in uu Liibiya ku wareejiyo Talyaaniga. Talyaanigu wuxuu filayay in uusan wax iska caabin ah kala kulmi doonin shacabka Liibiya, wuxuuna bilaabay inuu dhiso maamul isaga hoos yimaada. balse kooxdii mujaahidiinta ahayd ee uu hogaaminayay Cumar al-Mukhtaar ayaa dagaalo qaraar kala hor yimid, waxayna dileen boqolaal ciidan. Ciidanka Talyaaniga ayaa isticmaalayay hub casri ah, halka Cumar al-Mukhtaar iyo kooxdiisa aysan haysan hub u dhigma kan Talyaaniga. Cumar al-Mukhtaar waxaa marin u ahaa dhulka saxaraha iyo dhulka buuraleyda. Wuxuu bilaabay dagaal ku dhif oo ka dhaqaaq ah, waxaana halkaas uga baxay magaca libaaxii saxaraha. السلام مع الإيطاليين فأمر عمر المختار هو وجنوده. gumaystihii Talyaaniga iyo kooxihii iska caabinta ee gumaysidiidka ee Cumar al-Mukhtaar uu hogaaminayay iyo ciidamada Talyaaniga waxaa Liibiya ku dhex maray dagaalo aad u waaweyn oo ay ka mid ahaayeen dagaalkii weynaa ee labada maalmood socday ee loo yaqaanay Derna oo dhacay bishii May 1913. dagaalkaasi oo ku dhammaaday 70 askari oo Talyaani ah oo la dilay iyo 400 oo kale oo lagu dhaawacay, iyo dagaalkii Boshamaal ee Caynmaare ka dhacay bishii Oktoobar 1913. sidoo kale 1914 waxaa dhacay dagaalo ay ka mid ahaayeen Shaqnaab, Shaldiima, Zawitina. xilligaasi oo Cumar al-Mukhtaar hogaaminayay dagaaladaasi oo dhan, isaga oo isaga gooshayay goobaha ay dagaaladu ka socdaan. Cumar al-Mukhtaar ayaa dagaal kula jiray Talyaaniga muddo 20 sano ah. Sanadkii 1922
markii kooxdii sanuusiyadda ay Masar u wareegtay, Cumar al-Mukhtaar wuxuu ahaa mid sii waday dagaalka looga soo horjeeday Talyaaniga. Xaaladda ayaa ka sii dartay iyadoo fashiistaha ay la wareegeen taladii Talyaaniga bishii Oktoobar 1922. Gumaystihii ayaa qabsaday meesha loo yaqaano Jabal Aqdaar iyo magaalada Yaqbuub oo u dhow dalka Masar si uu u joojiyo kaalmada Cumar al-Mukhtaar uga imaan jirtay dalka Masar, balse uma suuro gelin Talyaaniga inuu joojiyo weeraradii kooxihii kacdoonka waday. Janaayo 1929 dowladda Talyaaniga ayaa Pietro Badoglio u soo magacaawday inuu xaakim ka noqdo dalka Liibiya. Kadib Talyaaniga ayaa yareeyay dagaalkii uu kula jiray Cumar al-Mukhtaar, wuxuuna ku baaqay xabad joojin iyo heshiis uu la gelayo Cumar al-Mukhtaar, balse shiiqa ayaa shuruud uga dhigay heshiiska. Cumar al-Mukhtaar heshiiska waxa uu shuruud uga dhigay in la sii daayay dhammaan dadkii uu Talyaanigu xabsiyada ku guray. 2. In ciidanka Talyaaniga laga saaro magaalooyinka xeebaha bari ee Liibiya. 3. In dugsiyadii lagu baran jiray Carabiga iyo diinta Islaamka dib loo furo. Heshiiskaas uu shuruudaha ku xiray Cumar al-Mukhtaar kadib, Talyaaniga ayaa iska diiday shuruudahaas, waxayna soo bandhigeen shuruudo ay ka mid ahaayeen in Sheekh Cumar al-Mukhtaar uu dagaalka joojiyo dalkana iskaga baxo, taas oo horseeda in heshiiskii uu fashilmo. Kadib Talyaaniga ayaa Badoglio bedelay, wuxuuna soo magacaabay Rodolfo Graziani. Cumar al-Mukhtaar waxa uu halkaas ka ogaaday in gumaystaha uusan fulin heshiiskii, dagaalna uu damacsan yahay. Intaa kadib waxaa xoogaysay dagaaladii u dhexeeyay labada dhinac. 1931 magaalada loo yaqaan dagaalkii kacdoon wadayaasha. 20 sano oo dagaal iyo iska caabin ah ugu dambeyn. 11 Sebteembar 1931 dagaal socday 2 maalin ayaa Cumar al-Mukhtaar isagoo dagaalka ku jira waxaa soo gaaray dhaawac ciidankiisiina waa la jabiyey, taasoo Talyaanigu u sahashay in Cumar al-Mukhtaar ay nolosha ku qabtaan. 3 maalmood kadib 14 Sebteembar 1931 Cumar al-Mukhtaar waxaa la horgeeyay maxkamad militari oo Talyaanigu leeyahay oo ku taalay magaalada Benghazi si ay xukunka ugu rido. Maxkamaddii ayaana ku xukuntay daldalaad. Subaxnimadii 16 Sebteembar 1931 Cumar al-Mukhtaar waxaa laga saaray xabsiga Benghazi iyadoo la saaray gaari ciidan. Waxaa la geeyay fagaaro weyn oo ku yaala magaalada Suluk, halkaas oo ay joogeen in ka halganka u hogaamin jiray. Cumar wuxuu xirnaa dhar cad, wejigiisana waxaa ka muuqday kalsooni, deganaan iyo shucuur sare. Inta aan la toogan waxa uu si hoos ah u yiri, "Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun." Waxaa lagu toogtay dadka hortooda si naxariis darro ah, laakiin dilkiisaasi waxa uu dhalay xornimadii dalka Liibiya. Ugu dambeyn, Talyaanigu way dileen Cumar al-Mukhtaar, balse ma uusan dhiman. Wuxuu si nool u dhexgalay quluubta ummadda Liibiya iyo muslimiinta dunida. Dagaalkiisii iyo dhiranaantiisii waxay noqdeen mid dadka ay